maanta waxaan dul istaagaynaa waxa loo yaqaano xasaasiyadda ama allergic. sida guud ahaan jirka bani'aadanka waxyaabo qaar ayuu diidi karaa qofka marka uu isticmaalo ama xiriir uu la yeesho ama uu taabto. jirka bani'aadanka wuxuu leeyahay 5 qaybood ee habdifaaca jirka u qaabilsan waxyaabaha jirka dhibi kara soo weerari kara inay ka hortagaan. inta ugu badan dabcan 5taas qaybood waxa ugu muhiimsan qayb ka mid ah oo loo yaqaano immunoglobulin E ama type 1 hypersensitivity. dhammaan asxaabta aan halkan ku saaxiibna intii hore iyo intii cusub inta aan barnaamijka gudagelin saaxiibayaal waxaan idinka codsanaa in YouTube kanaalkayga subscribe-ka iyo like-ta aadan iga hilmaamin. sidoo kale su'aal iyo talo waxaad u baahan tahay aad isoo weydiin kartid adigoo aad mobile-kayga aad ka heli kartid dhanka description-ka YouTube channel-kayga. aad iyo aad idinkaga mahadcelinaa dhammaan asxaabta halkan aan ku saaxiibno. siyaabooyin kala duwan ayuu qofka u saameyn karaa allergic ama xasaasiyad. marka laga hadlayo dhanka iyo hawada waxaa jiri karo waxyaabo ka mid ah hawada inay ku jiraan oo jirka qofka dhibi kara air pollutionska ama boorka busta hawada wasakhaysan. sidoo kale dhanka iyo sigaar cabista qofka waxaa laga yaabaa inuu ag fadhiyo qof sigaar aad u isticmaalayo taasoo uu jirkiisa marka ay u gudubto qiici sigaarka ka hor imaan karo habdifaaciisa. sidoo kale dhanka iyo taabashada marka aan ka hadalno qofka jirkiisa ama habdifaaciisa jir wuxuu ka hor imaan karaa waxyaabaha uu xiriirka uu la sameeyay. waxaana ka mid ah qaybaha kala duwan ee cooska, sidoo kale beeraha dhexdooda, saxarada deegaanka dhex taala ee xoolaha, sidoo kale dhanka iyo dhogorta xoolaha ama maqaarka xoolaha. dhammaan waxyaabahaas aan ka soo hadalnay qofka marka uu habdifaaciisa jireed uu diidan yahay ama uu ka hor imaado wuxuu si toos ah u dareemaa waxyaabaha loo yaqaano xasaasiyadda ama allergic reactions. dhanka iyo cuntooyinka waxaa jira ayagana dabcan waxyaabo laga qaado xasaasiyad ama allergic. waxaana ka mid ah qaybaha kala duwan ee digirta, gaar ahaan digirta loo yaqaano cambuulada. sidoo kale dadka qaarkood waxay xasaasiyad ku qabaan hilibka, gaar ahaan hilibka doorada iyo malayga. sidoo kale dhanka iyo waxyaabaha la isku carfiyo oo qofku isticmaalo waxaa jiri karo in ay diidi karaan habdifaaca jirka dadka qaarkooda, sida kareemiska la marsado, barfuumiska iyo catarada iyo qaybaha kala duwan ee saabuunta. waxaa dhici karta qofka marka uu isticmaalo waxyaabahan cosmeticska ama waxyaabaha la isku carfiyo inuu ka qaadi karo waxa loo yaqaano allergic reaction. ama dabcan marka laga hadlayo in qofka xasaasiyad ee ku dhacday wuxuu jirkiisa uu noqonaa isbedel inuu ku dhaco dhammaan habshaqayntii jirka. waxaana ugu horeeya ka hor imaanaya qofka markuu isticmaalo wax jirkiisa uu diidan yahay ama allergen wax loo yaqaano kana hor imaanaya habdifaaca jirka. meelaha ugu horeeya oo reaction bixinaya ama dabcan falcelin ay ka dhaceysa waxaa ka mid ah xididada habwareega dhiigga qaabilsan. dhammaan marka uu qofka uu isticmaalo waxyaabaha jirkiisa diidayo qaybaha kala duwan ee jirka wuxuu soo deynaa dhacaanka loo yaqaano histamine. sidoo kale meelaha qaarkood ee u badan yahay histaminkaas laga soo deynayo waxaa ka mid ah dhanka iyo sanbabada, hawo-mareenka, neefsashada iyo ilaa iyo tubooyinka neefta ay kasoo gudubto. dhammaan qaybaha kala duwan ee tishuga ama unugyada ay ka samaysan yihiin marka qofka uu isticmaalo jirkana uu soo gudbo waxaa loo yaqaano allergen inay ka hor imaadaan iskana ilaaliyaan soona deeyaan unugyada ka hortaga caabuqa, gaar ahaan enzymeka loo yaqaano ama hormoonka dhacaanka loo yaqaano histamine, si uu u ilaaliyo habdifaaca jirka inuusan waxyeeloobin. ama qofka marka uu isticmaalo waxyaabaha xasaasiyadda ku kicini karo unugyada caloosha ama dabcan mindhicirada waxay soo deynayaan histamines wax loo yaqaano dhacaan kaasoo isku dayaya inuu ka hor imaado iskana celiyo wax walba oo jirka dhibaya dhanka iyo caloosha usoo gudbi karo. waxaana jirka ku badanaya wax loo yaqaano dhacaanka histamine iyo prostaglandin. qaybaha kala duwan ee kasoo muuqanayso xasaasiyadda waxaa ka mid ah marka laga hadlayo in qofka xasaasiyad ay ku dhacday habwareega dhiigga macrovascular, murqaha iyo unugyada murqaha iyo tishuda waxay noqonaya inay aad u bararaan, in habwareega dhiigga ama dabcan xididaha dhiigga inay noqdaan waxa loo yaqaano vasodilatation, inuu aad u weynaado dhexdiisa, qulqulka dhiiggana uu aad u yaraado, wuxa uu dhiigga uu sida electrolytes iyo biyo inay banaanka ay ku shubaan unugyada banaanka xigo, taasoo loo yaqaano permeability. sidaan hore ugu soo hadalnay qofka marka ay soo galaan jirkiisa waxyaabaha uu dhibsanayo dhammaan waxaa isbedelaya habshaqayntii jirka, xididihii, organiskii, xubnihii,
waxay noqonayaan kuwo uu ku wada dhaco vasodilatation, in dhiiggii uu yaraado, qofkana uu kaa galo hypotension wax loo yaqaano, electrolytekiisa ama maadooyinkii danabyada ama fluidka ay aada u yaraadaan. sidoo kale qofkaas wuxuu u gali karaa waxa loo yaqaano anaphylactic shock, inuu kaa galo marxaladda miirdoorsoomidda. meelaha ugu badan ama qeybaha ugu badan ee xasaasiyadda ee kasoo muuqanaysa waxaa ka mid ah hawo-mareennada, gaar ahaan nasal tubiska, bronchial tubiska iyo pulmonary-ga. dhammaan waxay noqonayaan kuwo aada u cariiri noqda, u barara, taasoo uusan qofka neefta qaadan karin. marka ay soo muuqanaysa xasaasiyaddan lagu arki karo in cuncun badan sanka uu dareemayo, sidoo kale inuu dabcan cabur uu dareemayo, biyo badanna ay sanka ka socdaan. taasi waxay caddeynaysaa in qofka xiriir uu la yeeshay waxyaabo jirkiisa dhibi kara inuu isticmaalo. arrinkaas marka ay sii socoto waxay keeni kartaa xasaasiyadda in qofka hawo-mareenkiisa ay saameyso qeybaha kala duwan ee sanbabada, waxaana ku dhici kara waxa loo yaqaano asma ama cudurka neefta. sidoo kale qofka marka uu isticmaalo daawooyinka kala duwan ee xasaasiyadda laga qaada ama cunooyinka kala duwan, qofka wuxuu isku arkaa in barar badan jirkiisa uu soo galay, gaar ahaan wareega isha kore oo dhan. sidoo kale daamanka dhinacyadooda inuu barar uu ku arko, sidoo kale dhanka iyo lugaha hoose ama dabcan ciribta hoosteeda in lagu arko ayadana barar. waxa kaloo dabcan lagu arki karaa qofka in indhihiisa aada ay u guduuteen, cuncun badanna uu jiro, iyo inuu isku arkayo ilin badan inay socoto. taasina waxay ka imaani kartaa in qofkan xiriir uu la yeesho ama uu u isticmaalo daawooyinka kala duwan ee xasaasiyadda laga qaado iyo cunooyinka kala duwan ee la cuno, gaar ahaan kuwa xasaasiyadda uu qofka marku uu qabo uu ka qaadi karo. dhammaan qeybahaas aan ka soo hadalnay, qofka markuu isku arko in xasaasiyad ee jirkiisa ay saameysay, waxaa muhiim ah in sida ugu dhaqsiyaha badan inuu gaaro goob caafimaad ama uu la tashto dhakhtarka ugu dhow. xasaasiyadda waxay u baahan tahay control aada u fiican, in qofka waxyaabaha jirkiisa dhibi karo lasoo saaro. sidoo kale qofka marka xasaasiyad uu galo, haddii uusan helin gargaar degdeg ah, wuxuu uu gali karaa waxa loo yaqaano marxaladda anaphylactic shock, ama qofka inuu shock uu kaa galo, uu miirdoorsoomo, dabcan dhidid badan ee jirkiisa uu ka baxo. taasina ay keeni karto in dhiiggiisa hoos uu dhacay, qofkana dabcan uu noqon karo qof aada u miirdoorsoome. mararka qaarkoodna hadduusan helin daawooyinkii ku fiicnaa inuu u dhiman karo xasaasiyadda. anigoo ah doctor maxamed liibaan maxamed, aada iyo aad idinkaga mahad celinaa dhegeysiga la socodka video kelbiska. halkan ayaan ku joojinaynaa. waxaan idin leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.